Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Akhyaarta kusoo dhowaada somalibusiness.info oo channelkan oo youtube-ka ah oo kusoo dhowaada insha allah. Khaaji abuya kheelina meeshaasuu ka kheelina. Hay khaaji abu kheele Somali business. Somali business. Marka khaaji abu waxaa waaye kaamera meelahan inuu imaado ma jeclo meeshaasuu ku gambadaa yaa inuu inta soo fadhiisa dhaha markaale kursiga soo fadhiisa iska sheekeysanayna dadka u faa'iideynayna dhaha marka kaale micnaha maya dhaha marka meesha ku gambada khaaji abu. Marka kusoo dhawaada somalibusiness.info anigoo Zakariya Maxamed Shooble. Qaanadan haddaa ku cusub tahay welcome to somalibusiness.info. Marhaba, karibu. Haddaad tahay dadka ku xiran aad iyo aada u mahadsan tihiin. Waxaan rajeynayaa in aad ka faa'iideysataan ayaa rajeynayaa. Insha allah fadlan maxaa la dhahaa muuqaalkan waxaad ku sameysaan share ku sameeya dadka kale oo u baahan internetka la ka shaqeystaan ama business ka sameystaan ama oo internetka mina lacag ka sameystaan oo rabaan asxaabta u faa'iideeya gaarsiiya. maxaa yeelay qofka hadduu ruuxiisa u faa'iideeyo iyo dadka kalena u faa'iideeyo horumaruu gaarayaa waa sidaas. Marka insha allahu tacaala hadalka ilaa nigu badiyo marabi maanta waxaan rabaa ilaa nii sheego website oo cusub anigoo igu cusub yahay. website-ka ma cusba ana igu cusub website-ka. ani baaritaana sameeyaa research ayaan sameeyaa marka website-kan ayaa arkay waa website aniga igu cusub saasaa ula jeeda. website cusub ma ahan laakiin anigu cusub yahay maxaa yeelay hadda ka hor website-ka ma arkin qaanadana website-kan hadda ka hor kama hadlin. marka waa website oo oo maanta oo aan arkay anigoo sameynayo research iyo baaritaani waxaasa sameynayay. marka waa kaasa website-kan aan ka hadlaynaa insha allahu tacaala. waxawaaye maasha allah dadka badanaa oo qaanadan daawada waxawaaye aqoon ayay leeyihiin, education ayay leeyihiin. waxaa ku jiraan dad badan oo jaamacad ka qalanjibiyey oo ka baxay ayaa ku jiraan. marka aqoon dad aqoon leh ayaa daawado muuqaaladan. marka channelkan ama website-kan aan ula jeedaa website-kan oo ka hadlayo waxaa la dhahaa schoolsolver.com ayaa la dhahaa. waxa weeye waa website dadka oo u baahan caawinaad sida oo u baahan dadka oo oo jaamacadda dhigta ama iskuulaadka dhigta oo homework la siiyo homework iyo waxaasaa la siiyaa. marka waxay u baahan yihiin caawinaad ayay u baahan yihiin. su-aalaha qaarkood ma fahamsana marka waxay u baahan yihiin qof oo oo ka caawiya ama imtixaan iyo waxaasay leeyihiin. marka waxay rabaan su-aalaha imtixaanaha oo kale qof inay ka caawiyaan ama wax kasoo naqi karaa khasabaan school su-aalay gelinayaan website-kan school solver su-aal ayay gelinayaan qofka su-aal ayuu gelinayaa. marka dadka kale ayaa ka jawaabayo. marka su-aalaha wuxuu ku xiran yahay qofka su-aasha gelinayo lacag ku bixinaya. marka wuxuu leeyahay aan caawinaada u baahanahay help ayaa u baahanahay. marka su-aashuu qorayaa. su-aasha markuu qoro kadib wuxuu leeyahay waxaa bixinayaa lacagtaana bixinaya uu leeyahay ha noqdo $5 ha noqdo $10 $20 $30 $40 way kala yihiin. su-aalaha kale ah sida su-aalaha oo oo biology oo kale iyo chemistry engineer iyo computer science lacagtiisa badan. iyo su-aalaha kale oo ku xisaabsan xisaabka oo kale math ama english iyo waxaas lacagtiisa iska yar. marka haddaa ku dheereysid xisaabka oo kale haddaa garanaysid sida xisaabka loo xaliyo ama computer information haddaa garanaysid chemistry oo kale haddaa garanaysid ama biology haddaa garanaysid physics haddaa garanaysid waxaan oo kale haddaa ku dheereysid website-kan waad ka faa'iideysan kartaa. maxaa yeelay waad ka faa'iideysan kartaa waad gali kartaa accounta ka sameysanaysaa account markaa ka samaysatid waad caawi kartaa dadka ayaa caawi kartaa. su-aalo badan ayaa ku jiraan marka su-aalahaasaa ka jawaabaysaa.
marka insha allahu tacaala waa computerka galeena si caadada noo ah waqti kasto maxaa yeelay waan i tusayaa waxaa aniga ka hadlayaan i tusayaa markaan ii tuso waad fahmaysiin waad arkaysiin waxaa aniga ka hadlayo o dhan micnaha wuuni jilcinayaa faahfaahis fiican understanding fiican ayuuni siinayaa marka waa kaasaa computerka galeena insha allahu tacaala waa kana maasha allah akhyaarta computerka ayaa ku jirnaa fadlan waxaad ku salisaa nabigeena ku saliya allahuma salli wasalim calaa nabiyina muxamed mida kale hadduu yahay waqtiga salaada hadduu yahay fadlan waxaad ku dhufataa paus ku dhufo muuqaalkan jooji orod salaada duko markaa salaada dukati kadib soo laabo yaa sii wad marka insha allah marka websiteka waa kana waa ku jirnaa websiteka waxaa la dhahaa school solver ayaa la dhahaa websiteka waa kana waxaana su-aaladana ka buuxaan soo mujeedi waxawaay dadka imaadaan su-aashooda ayay geliyaan marka adiga oo kale haddaa jawaabta garanayo ya waxawaaye lacag ayaa ka qabi kartaa lacag ayaa ka sameeyi kartaa marka for example mithaal ahaan haddaan eegno su-aasha koowaad su-aashan waxaa la geliyey shalay ayaa la geliyey aniga maanta wuxuu ii yahay taariikhda maanta wuxuu ii yahay 17 taariikhda maanta wuxuu ii yahay 17 oo April uu ii yahay marka shalay ayaa la geliyay for example su-aashan macnaha wuxuu leeyahay wuxuu bixinayaa $20 uu bixinayaa marka wuxuu u baahan yahay in loo sameeyo powerpoint presentation in loo sameeyo u baahan yahay marka waan ku dhufanaynaa waa arkeenaa si oo shuruudahoodii iyo waxay rabaan in loo qabta arkeenaa marka kana marka su-aasha waa kana halkan ay ku qoreen micnaha wuxuu leeyahay magaciisa Allen ayaa la dhahaa wuxuu leeyahay make a PowerPoint 6 to 8 slides on chapter 17 physics and cognitive development in late adulthood human growth and development course micnaha wuxuu u baahan yahay PowerPoint in loo sameeyo oo ka hadlayo micnaha physical and cognitive development and in late adulthood kaas waan eegnay marka kuwaan oo dhan kana waa su-aal kale $10 bixinaya waa biology haddaa biology garanaysid oo ku dheeraysid kana waa business su-aal business weeyaan marka waa fureynaa kan su-aasha waxa waaye wuxuu leeyahay I need somebody that solve 3 questions about business and will take at least a page for each question macnaha wuxuu leeyahay waxaan leeyahay 3 su-aalaa leeyahay waxaan rabaa qofka macnaha su-aalaha inuu iga jawaabo su-aal kasta waa inuu ahaadaa hal page inuu ahaado weeyaan uu leeyahay marka waa kana su-aalihiisa halkaana ku qoray su-aasha koowaad su-aasha labaad iyo su-aasha saddexaad soo mujeedid markaa su-aasha ku dhufatid kadib marka waxaad sameynaysaa halkaana ku dhufanaysaa waxaa leedahay account ayaa ka furanaysaa register ayaa leedahay accountiga markaa ku dhufatid waa buubuuxinaysaa kadib macnaha waxay kaa qaadayaan imtixaan oo gaaban ayay kaa qaadayaan marka waxa waaye macnaha dad badana inta imaada waxay u imaadaan ciyaar ahaan iyo waqti dhumis ay u imaadaan marka websitekan dadkaas way ka daaleen oo iska imaanayaan oo accountka furanayaan oo wax sameynin oo accountka ka furanayaan waxay sameynayaan ma jiraan marka waxa waaye dhibaato ku noqday buuqu ku noqday frustration ku noqday marka waxay bilaabeen hadda qofka hadduu rabo in uu ka shaqaysto oo macnaha oo su-aalaha ka jawaabo waa inuu bixiyaa adi $4 saasay ka dhigeen waxaad qaadanaysaa quiz ayaa qaadanaysaa quiz gaaban ayaa qaadanaysaa quizka markaa qaadatid waxay ka codsanayaan in aad bixisid $4 marka saas macnaha oo u controlaan oo macnaha dadka oo ciyaarta badan oo wax qabanaynin oo min account furanaya waxaasay rabaan ileh
joojiyaan oo micnaha oo yareeyaan. marka micnaha waxay leeyihiin qofka haddaad daacad tahay oo ciyaar meelahan ku jirin yaa kuwiska qaado imtixaankaas qaado $40 iska bixi ayay leeyihiin. okay marka waxa waaye midda kale waxa waaye waa inaad lahaataa PayPal. maxaa yeelay su-aasha markaa ka jawaabtid yaa waxa waaye lacagtan $20 oo dhan horta su-aasha halka $20 ku qoran soo ma jeedid la soco $20 dhan micnaha ma qaadanaysid adiga. maxaa yeelay website-ka wuxuu qaadanayaa 20% ayuu ka qaadanayaa iyo maxaa la dhahaa wixii kale oo soo haray adiga ku siinayaan. marka waa kaasaa halahana ku qoran su-aalahan oo dhan dadka weydiiyaan iyo jawaabaha halkaana ku qoran. marka waa inaad lahaataa PayPal. maxaa yeelay lacagta marka su-aasha ka jawaabtay lacagta kugu soo dirayaan lacagta waxay kugu soo dirayaan dhanka PayPal ayay kugu soo dirayaan. marka haddaad joogtid Soomaaliya oo kale haddaad joogtid ama haddaad joogtid wadan oo laga isticmaalin PayPal ama laga ogoleen PayPal marka waa nasiib xumo website-kan ma isticmaali kartid yaa waa nasiib xumo. maxaa yeelay haddaa rabtid inaad isticmaashid PayPal ayay u baahan yihiin si lacagta oo kuu soo diraan. yaa macnaha PayPal waa company aada u weyn macnaha sharcigooda aada u adag yahay oo macnaha Africa oo kale badanaa ma laga ogolo iyo Bangladesh iyo meelaha qaarkooda ma laga ogolo. maxaa yeelay wadamahaas waxaa ka buuxaan tuugnimada iyo isdhacidda iyo maxaa la dhahaa khiyaanada iyo beenta badan iyo lacag liska xadaayo iyo waxaasoo dhana ka buuxaan. marka ma rabaan bay ilamina oo meesha business ka sameeyaan ma rabaan saasay u ogoleen. marka waa fahamteen oo maleynayaa. marka waa kaasa insha allahu tacaala horta muuqaalkan waxaad saartaan saara like ku dhufo. marka like ku dhufatid kadib insha allahu tacaala waxaad ku salisaan nabigeeni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku saliya iyo midda kale insha allah qaanadan subscribe sameey si aad uga faa'iideysataan muuqaaladan oo soo socda. maxaa yeelay hadda subscribe ku dhufatid waxay muuqaalada cusub oo dhan waad arkaysaa waad ka faa'iideysanaysaa. hadda subscribe ku dhufanin macnaha muuqaaladan oo cusub oo faa'iidada leh yaa ma ku soo gaarayaan ma ka faa'iideysanaysid. marka waa kaasaa insha allah saasay noo dhamaatay. maanta waxaa ka hadalnay website-ka la dhaho School Solver oo macnaha oo ku jiraan su-aalo badan. haddaa su-aalahaas aad ka jawaabtid lacag ayay ku siinayaan. waxay ku xiran tahay aqoontaada ay ku xiran tahay xirfadaada ay ku xiran tahay dadaalka ay ku xiran tahay. macnaha $20 haddaa maalintii oo ka jawaabtid 5 su-aal waxaad samayn kartaa $100. maalintii haddaa ka jawaabtid 10 su-aal waxaad samayn kartaa $200. lacagta way kala yihiin. kan oo kale macnaha waxa waayaan $50 ku siinayaa yaa lacagta macnaha $20 mahna lacagta way kala yihiin. $50 haddaa ka jawaabtid maalintii ka waran 5 su-aal haddaa ka jawaabtid waa $250. marka waa kaasaa insha allahu tacaala anigoo Zakariya Maxamed Shooble. muuqaalkan waxaan rajeynayaa in aan wax ka faa'iida rajeynayaa. commentigiina hoos ku qora waxaad saartaan like saara iyo qaanadan maxaa la dhahaa ku xirnaada insha allah si aad uga faa'iideysataan. muuqaalkan share ku suubiya social media Facebook iyo meelahaas share ku suubiya dadka kala gaarsii insha allahu tacaala. waa kaasaa internetka waa macnaha meel laga faa'iideysto. qofka hadduu rabo internetka inuu ganacsi ama business waxaas ka sameeyo waa wax macquul ah oo laakiin wuxuu u baahan yahay dadaal ayuu u baahan yahay. maxaa yeelay qof kastoo dunida dhan hadda waxa waaye internetka ku shamuumooyin internetka ay galooyin internetka ay ka shaqaysanooyin internetka ay ganacsi ka sameynooyin. marka competitionka wuu batay waqti kastana competitionka wuu badanoyaa. marka qofka wuxuu u baahan yahay dadaalkiisa inuu bato qof inuu ahaado oo dadaal badan. marka waa kaasaa insha allahu tacaala kheyr badan ayaan rajeynayaa. waxaan is arkeenaa muuqaalada soo socdo ayaan is arkeenaa insha allahu tacaala. muuqaalada meelahan ku dhegan
ku dhufta oo ka faa'iideysta iyo waxay maxaa la dhahaa muuqaalada kale hoos ku dhegan oo faa'iidada leh ku dhufta ka faa'iideysta waa kaasaa in sha allahu tacaala. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. waqti kasta waxaan jeclaa ilaa nii xasuusiyo qosolka badsada.